Sida laga soo xigtay New York Times, ugu yaraan 108 milyan oo qof ayaa lagu dilay qarnigii 20aad. Dagaalkii Koowaad ee Adduunka wuxuu ka bilowday Yurub wuxuuna socday in ka badan 4 sano, sannadihii 1914 ilaa 1918, iyadoo 7 milyan oo rayid ah iyo 10 milyan oo shaqaale milatari ah ay naftooda ku waayeen. Dagaalkii Labaad ee Adduunka wuxuu socday 6 sano, 1939 ilaa 1945, dhimashadu waxa ay gaartay 50 milyan oo qof. Dagaalkii Koowaad iyo kii Labaad waxay ahaayeen musiibo mar soo martay adduunkan. Haddaba su'aasha ayaa waxa ay tahay, mar saddexaad ma dhici karaa dagaalkii saddexaad ee adduunka? Arrintan waxaan ku ogaan doonaa qaybtan. Maxay yihiin fursadaha dagaalka saddexaad ee adduunka? Dagaaladu waxay u qarxi karaan dhowr sababood awgood. Dagaalkii Koowaad ee Adduunka ayaa muran la'aan bilaabmay markii la dilay Archduke oo u dhashay Austria. Sidoo kale, inkastoo ay jireen dhowr dhacdo oo horseeday dagaalkii Labaad ee Adduunka, soo bixistii Yurub, iska-horimaadkan wuxuu yimid 1 Sebteembar 1939 markii uu Jarmalku ku duulay Poland, taasoo horseed ka ahayd Ingiriiska iyo Faransiiska in ay ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah dowladdii Naasiga Jarmalka iyagoo aargoosanaya. Dagaalka saddexaad ee adduunka wuxuu ku imaan karaa muranka Mareykanka, Ruushka, ama suurtagal ahaan Mareykanka iyo Shiinaha, iyo dabcan Waqooyiga Kuuriya oo ahayd mowduuca ugu kulul saxaafadda hadda. Kadib kulankii taariikhiga ahaa ee madaxweyne Trump uu la qaatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, maqaal dhowaan ka soo baxay New York Post ayaa soo bandhigay erayada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa yidhi fahamka in dagaal saddexaad oo adduunka ah uu noqon karo dhammaadka ilbaxnimada. Markaad sheegtid erayada dagaalkii saddexaad ee adduunka ma cabiri kartid, laakiin waxaad ka fakaraysaa hubka nukliyeerka, maadaama ay u badan tahay dagaalka saddexaad ee adduunka in uu noqon doono mid nukliyeer ah.